السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوق أنبري هور أخري أولو أورنجري بقرطويدا حويانكا. بوغاس وحو كهدليا وحيابا فربادان وعجيب وشرتا بقرطويدا حويانكا وفعنان لاهيد إنان كودايانو وما انتصالا أنو قادانو وأنفلا ينولشينا إني بدلي لاهيد مركن كهدانو أرساقادا دانيردا مشقولينيسا شيكا أنك أخري بوغاس وحي أهيد شيكا دحمرتي نبي سليمان يقرانشو نبي سليمان quraanjo buu keenay oo quraarad ayuu ku xidhay wuxuu ku idhi waxaan ku siinayaa cunto kugu filan sanad ee baxad u baahan tahay waxay ku tiri waxaad isiisaa 2 xabadood oo qamandiya sanad ka bacdi ayuu soo noqday quraaradii ayuu furay wuxuu arkay iyadoo xabad qura cuntay oo xabadna reebtay wuxuu ku idhi quraanjoy ma been bad u sheegaysaa nabiga ilaahay waxay ku tiri may been kuma sheegay nabiga ilaahay laakiin maalintii arsaaqadaydu qacanta ilaahay ay ku jirtay waxaan hubaa oo aan ogaa inaanu ilaahay ilaaweyn oo arsaaqadayda meel ka soo joogo ii keenayo marka 2 xabadood qamandida waan cuni jiray laakiin maalintii quraarad ay adigu xidhay oo arsaaqadayda qacantaada adiga ay ku jirtay ayaa waxaan gartay inaad kulliba aadamto ad ilaawaysid maalinna waxban cuni jiray maalinna waan soomi jiray taas baa ugu wacnayd inaan xabad qoro qamandiyo cunay xabadna ay soo hadhay baxa inoo diiday innakana inaan yeelano iimaankaas ay quraanjadu ay leedahay iyo iimaanka ilaahay ay aaminsan tahay sidoo uga baqaysa inaad shaqo weydid ama amal la'aan kugu dhacdo ama arsaaqad ad weydid ilaahay soomaha ar-razaaq ilaahay soomaha al-mu'ti ilaahay soo qacantiisu kuma jirto khasnadaha cirka iyo dhulka ee wax kasta haday ka baxaan aana dhamaanayn dibta kale dhalinyarada haysata waxa weyn isbedelkii bay ka baqayaan oo waxay ka baqayaan noloshooda inay hagaajiyaan oo ay bedelaan taasna waxaan tusaale u soo qaadanaynaa shimbirta la ilaaho gorgorka shimbirtaas waxay noolaataa 75 sanadood laakiin sidii da'da u noolaato da'da u gaadho go'aan adag ay nolosheeda qaadataa markuu da'deedu u gaadho 40 jir markuu da'deedu 40 jir gaaro ayaa waxa ku dhaca inaan ugaarsan karin oo cuntadii aan cuni karin sababtuna waxa weeyaan afkeeda jarjari jiray hilibka ayaa uu qalloocsamaya oo waxba kuma cuni karto cidiyaheedii sida seefta ahaa iyakuna way xumaanayaan hilibkii kuma jarjari karto haddii istiraaha inay duushana baalalkeedu way culusaanayaan oo miisaankeeda ma qaadi karaan oo hadhowtana ma duuli karto sababtaas ayaa hadhowtana khatar bay nolosheedu ay gelaysaa markaas 2 shay ayay noqonaysaa inay kala doorato ama inay doorato inay isdhiibto gaajo daraadeed ay u dhimato ama inay doorato inay nolosheeda ay bedesho oo isbedel nolosheeda ay ku soo kordhiso si kasto bedelkaas uu aad u xanuun kulul yahay bedelkaas oo soconaya 150 cisho bedelkaas wuxuu u baahan yahay inay ugaarsato neef yar ama shimbir weyn inay ugaarsato oo hadhowtuna ay u duusho buur dheer dusheeda halkaas ay joogaysaa 150 cisho waxay samaynaysaa afkeeda ay bilaabaysaa inay la dhacdo ay ku dhifato dhagax adag markaas uu afkeedii wax ku cuni jirtay uu burburaya uu bilaabaya inuu af cusub oo adag oo fiican inuu soo baxo hadhowtan waxay bilaabaysaa cidiyaheeda inay ku jajabiso dhagax oo ay ku dhifato markaas uu dhiig uu ka imanaya cidiyaheeda oo cidiyadeedu hore ay jajabayaan oo dhacayaan markaasay bilaabanayaan cidiyo cusub oo adag oo sida seefta wax u goynaya inay u soo baxaan marxaladda ugu dambaysa isbedelkaasna waxay marxaladda ugu xanuunka kulul taas waxa weeyaan inay rifto baalalkeeda oo baalalkeeda iska googayso markaasay 30 cisho ay joogaysaa bila baalal oo 30 ka cisho hadhowtana gudaheeda ay baalal cusub ay u soo baxayaan baalal cusub oo ay ku duuli karto hadhowtana 150 cisho ka bacdi ayay noqonaysaa sidii inay labaad ay dhalatay oo ilmo yar oo cusub oo dhasho kale ay noqonaysaa markaasay duulaysaa oo sidii hore nolosheeda ku soo noqonaysaa oo hadhowtana taas awood ay in da'deedu ay gaadho 75 sanadood taas macnaheedu waa maxay ama baxan ka faa'iideynaa taas waxaan ka faa'iideynaa marmar qaarkood sida nolosha aad ugu guuleysatid waxaad ugu baahan tahay ama aad u baahan tahay noloshaada inaad bedeshid oo aad wanaag aad baadhid ama wanaag inaad gaadhid inaad ka takhalusid ama iska tuurtid caadooyinkii xumaaya kula hadhaayay xasuustii xumayda noloshaada hore ka soo raacday ee ku culisaynaysay inaad dadaashid oo aad wax baratid
oo habeena badan aad soo jeedid oo waqtigaaga iyo caafimaadkaaga aad u hordid inaad horumar iyo guul aad gaadheed oo sida shimbirta gurgurka aad noqoteed xanuun kastoo oo la socda isbedelka inaad u dulqaadatid sad wanaag iyo horumar aad u gaadhid sheekada saddexaad aan ka akhriyay buuggaas waxay ahayd sheeko ku saabsan cadaaladda aan bulshadeena aan u baahannahay si bulshadeenu iyo dalkeenu horumar fara badan u gaadho oo dhalinyaraduna ay xaqooda u helaan oo mid kasta meeshii u qalmaysa inuu fadhiisto taas waxa weeyaan maxkamadda ay shimbiraha tukuhu ay sameeyaan hadduu shimbir ka mida ay dembi ay gasho dembigaasoo noqon karta in shimbirta tukuhu ay cuni karto cunto shimbir kale ama ay ka burburin karto guriga shimbir kale ama inay u weydaaran karto lamaanihiisa maxkamaddii baa la samaynayaa markaas waxaa la isugu yeedhayaa shimbirihii tukahoo dhan baa la isugu yeedhayaa dembiilihiina waa la keenayaa dembiilahana waxaa lagu xukumayaa baalalkiisa inuu isu dhoweeyo aanu furin iyo inaanu ceyin iyo madaxiisa hoos uu dejiyo xukumkii ayaa lagu soo dejinayaa haddii la xaqiijiyo inuu dumiyey gurigii tuka kale waxaa lagu xukumayaa inuu gurigaas mar labaad uu u dhiso isagoo la ilaalinayo oo laga warhaynayo inuu hawshaa u qabtay hadduu cunay cuntada shimbir kale waxaa lagu xukumayaa in laga rifo baalalkiisa oo baal qura loo reebin taas oo sabab u noqonaysa inaanu duuli karin muddad bila oo taasuna laga yaabo inay ku sugnaado khatarta dhimashada ta ugu dambaysa hadduu galo dembiga ay tahay inuu shimbir kale lamaanihiisa uu u weydaartay taasna waxaa lagu xukumayaa in madaxa laga qaraaco oo hadhowtana sida loo qaraacay inuu dhinto hadhowtana la qaado la aaso waxay fiicnaan lahayd in bulshadeena ay ka jirto cadaaladda ka jirta bulshada shimbirta tukaha oo kale oo qofkii dembi gala dembigii laga jarayo qof kastoo xaq lena xaqiisii loo soo celinayo qofna aanu qofka kale aanu dulmi lahayn taas waxa weeyaan 3 sheekooyin aan ka akhriyay buuga boqortooyada xawayaanka oo ku saabsan dhibaatooyinka bulshadeena ka jirta ay ka mid tahay arsaaqada laga baqaayo ee dhalinyaradu ay ka warwarsan yihiin iyo shaqo la'aanta iyo isbedelkii aanay bedeli karin noloshooda horumar aanay gaari karin iyo cadaalad darrada marmar qaarkood bulshada ka jirta anigoo rajaynaya maanta inaan tusaalooyinkan soo qaadayn wax ka faa'iidaan oo noloshiina ay wax ku soo kordhiso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh